مدن مدحويني شرف يكرام إنه تاين هذا وقت قاعد إنه هرتو إسلام كان عن في أو إكاك بشو أو رئيسيا أن مركو ريكو بلعبه waxaa jira xaaladaha mandaqada ta Afrika ta adduunka iyo tugaaro Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha gudaha ah aan ku horeyna siyaasadda arrimaha gudaha aan muddo 40 maalmood aan dhameyn baad xafiiska joogta aan 120 ama 100 maalmood horena qorshe ayaa yaalay ilaa imka maxaa ku qabsoon horta waa muddo yar laakiin waxyaalo badan baa qarsoomay yaa noo qabsoomay hawluhu markaad hawlgelayso waxay u baahan tahay qorshe iyo vision kuwaas manifestadii iyo markii dadka aanu dee kaambeynka bilaabeynay baan kusoo talagalno waa jira waxay soo baahan tahay marka ay wuxuu marka hore aragti tahay qorshaha tira halkaan soo qaban marka dambe waxaad hada stage-kii loo rogayay fulinta stage-ka fulintu xaaladda uu ku soo beegmana دراسة قارو لبعض وبهي قال environment كسياسة دي أبو رمي حالة كلا أبو رمي كرات كثر كشارة هين دبتوين كلا يمن كلا مركا ورثة وحي قرشة على هاي نحكي فينا وردم هني مشاريع دي أنا كاري جناي مدنان تكوّدنا بدن كود وانو دبرونا مركا حالة دي دبرو وانا أكسب بكسوتها dadka qaar baa markaad magacooday golaha wasiirada dareen cilinta soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacawday qaarkood goobahadu magacawday aanay ahayn goobaha aqoonteeda lahaayeen wasaaradda badan oo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya sidee qofku aqoontiisa iyo adsula meel dhigtay iyo shaqada uu qabanayo waxayna tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saaro waxa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana wax qaban karo qof kasta oo fanka hogaaminta ama siyaasadda oo inta badan u baahan waa aragnimo aqoon oo dharasho taana way furin karaan cadaaladda oo kale cadaaladda waxay noo hayaan chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xeeraryaha guud oo specializationkiisa leh ama aqoonta gaar ahaaneed leh cadaaladdu waa meel maamul iyo hogaamineed marka haddaad u jeedo maad siinin garyaqaan ah waxay la tahay wasaaradda cadaaladdu maamul bay qabataa adeeg bay u qabataa maxkamadda garsoorka laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahan yahay waxa fuliya maxkamadda sare iyo xeeraarinta guud marka waxay la tahay waa ku habboon cidii loo magacaabay weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn ma laga yaabaa in 100 maalmood ay dhammaadaan adigoo weli soo dhammaystirin xukuumaddeedu waa dhammaystirantay golihii wasiiradu waa dhan waxa kale waa shaqaale waxa haray waa shaqaale shaqaalahana qofkii shaqadiisa hayay dee in la bedelo ma noqonayso haddii meel banaato ama qof shaqada qaban waayo in bala bedelaya hawsha la dhalay marka ma arka xukuumadda waxa la xukuumadda waana dhammaystirin yaa la doonaya in magacaabo agaasimayaashu waa shaqaale waa civil servant maarayaashu waa civil servant ambassadors waa la mid marka waxay u baahan tahay in la dirso oo ciddii xilka haysa cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daayay male marka ra'yiga kuma raacsanay xukuumaddii ma dhammaystirin xukuumaddii 2 maalmood gudood baan ku dhammaystiray oo soo diinay wasaaradda oo dhan waana la ansixiyay baarlamaanka ka dhawaaday hawshan oo socota sunnaha xukuumadii ka horeeyay baa wuxuu ahaa in agaasimayaasha saad sheegtay walaal shaqaaliin la magacaabo mar la soo wada raaciyo dadka qaar baa weli habeenkii seexday iyagoo xil haya subaxiina soo kacay iyagoo isla xilkii ma laga qaaday micnaheedu waxa weeyaan ciidaanad weli wasaaradahoodii ugu tagin eena taaban ama shaqaale hoosaadaadan ama agaasimayaasha hadaane sidoodaas xilka u haynaya ha dowladnimada waxana waa political post waa la doortaa madaxweyne ku xigmada doorasho xukuumad baa laga rabaa xukuumaddu waa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada caalamka oo dhan agaasimayaal ambassadors generals oo awoodaha madaxweynuhu saxo waxa weeye laf dhabarta maamulka administration iyaga hawsha socodsiiya wasiirka la keeno habadalmo waa inaanu xafiiskaasi dhaqaaqin oo faylkiisu yaalla oo la shaqeeya marka kuwaasi kuma xidhna inay la wareegaan doorashooyinka haddii kale meeshu waa la saadey shaqada dowladda wala marka waxaan aragnaa in sharcigaasi uu yahay ka sax la raacayo marka wixii xil haya agaasime maareeye channel ambassador waa hawl joogta oo ninkii hayay
qof hawshiisa loo garan waayo mooyaane qofka xilka uu haynaya maha political post aynu nimaadno arrimaha xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumaddaada cusub wadan iyo ucid wada shaqayntiin waa sidee horta yar baanu joognay xisbiga wadani halkan isku arnay xafiiska igan guddoomiyaha xisbigaas si wanaagsan waanu kala tagnay waananu sugaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan kulanno faysal isaga dhowr jeer baanu kulannay oo shaqaynay waxayna tahay xisbiyada mucaaradkii xaq dastuuriya leeyihin iyo mid siyaasi qadarin iyo ixtiraam bay naga mudan yihiin diyaar baanu la shaqaynay waanu soo dhaweynaynaa insha allahu dee in yar baanu joognay muddada soo socotana waanu wada shaqayn doonaa oo danta qaranka nagu qasbaysa aanu heshiino annagana mas-uuliyad weyn baanu saaran inaanu ixtiraamkooda u dhamayno iyo wada shaqayntooda taana diyaar baanuna way waxaa jira doorashadii somalilan ka dhacday dadku sibay ugu kala aragti duwanaadeen meelaha qaar bay gaadhay in qaybsanaan bulsho dhacdo marar badanoo hadashay adiguna wada carab baabtay jiritaanka hawshaasi sidee loo dhayayaa bay kula tahay xanafta doorashada iyo mideyntii dadka marka dambe siyaasadda ku kala aragti duwanaa waxaa la idhaha dimuqraadiyaddu shar iyo khayr bay leedahay kala qaybsanaanta iyo xanafta dimuqraadiyadda leh waana jiraysaa xikmaddu waxa weeye marka wax la tartamayana waa la isqarduufaynaya mar hadday dhamaatana waa la iska canqaadaa meel baa la wada jeedsaa dee waanu labadaa sharci bay fulina haddii kala jiri mayno tartanna waa waajib oo dimuqraadiyaddiiba ah markaa la tartamaya jiirjiirka iyo tartanka iyo isriixu waa badanya ila kuma daawad aragta waxaa dhidi ka dhacay ragge mar hadday dhamaatana dee dalka iyo qarankaa meel wada jeedayaa markaa kala qaybsanaan kale may jirin waa tii tartanka tiina way dhammaatay annagoo xilka haynaana waanu ku dadaalaynaa intii kartida inaanu xaraftaa dhammayno mucaaradkana insha allahu iyaguna sidaas si leegun bay mas-uuliyaddu saaranta way dhammayn doonaan markaa wixii waxaa la yidhahda raadayntii tartanku wuu iska dhammaan doona 3 tiir baa dowladda somalilan ka koobanto herdejintii iyo fulintii iyo garsoorkii annagana la dirsaday dhowr jeer ku celisa waxaa jira dad aan ahayn dadka tilmaantay oo madax dhaqameed leh oo ganacsato leh oo dadka kale bulshada leh oo ka hadla arrimo taabanaya ama amni ha noqoto ama wadajir ha noqoto ama sidoo kale siyaasad lafteedaba ka hadla adu mowqif nooc baad ka taagantahay arrintaas salaadiinta siyaasadda ka hadasha iyo dadka aan saad adigu u dhigtay loo dooran ee ka hadla arrimahaas horta dhaqankeenu bulshada soo nooshahay saynu dhisanahay waa qabariya xisbiyaduna waxaa rabaa dadka qabyaalada ka saaraan oo xisbi la isku tago xisbiga asbaabtii ku shaqeeyo marka inagu taas inuu adeegina inuu dadku xisbiyada ku biiro marka xisbiya loo wada hadlo oo siyaasadda loo maamulo dhaqan kale aynu leenahay mujtamaceenu wuxuu qaybsan yahay dabaqado masalan culimada waa awood madax dhaqameedku waa awood ganacsatadu waa awood bulshada rayidka ah oo aqoon-yahanka iyo guruubo ismaystana waa awood saxaafaddu waa awood horta hogaamintu waa ina intaasoo dhan danahooda lamid ah in la hogaamiya qof wal oo intaa ka mid ah markay siyaasadda xisbi unba ku abtirsada cid kale food ma qaado cid kale madaxweyne ma bedesho cid kale siyaasadda qaranka ma jeexdo xisbiyaa jeexa markaa dadkaa faraha badan ee noocaasi xisbiyay ku wada abtirsadaa qofkii aan xisbiya midna ahayn waxaanu ka qeyb gelin horumarintii iyo maamulka dalka uu kala noqday waajibaad sharcigu saaray oo dalkiisa ku leeyahay inuu tabar ka qaato ayuu ka baxay marka waxaan ka soo waxa dhab ah inay dadku u qaybsan 3 xisbi oo u kala codeeyeen markay noqoto siyaasadda guud ee dalka waa inay 3 xisbi dee maamulkeeda leeyihiin loo daayo adigu saxaafiyiintu waxay ilaaliyaan danta qaranka ciddii haysaba waxaasaa qaldan warkaasaa soo baxay dadka isu gudbiyaan dee anu xilkaa ma qaban karo aniga lama inaan war isu gudbiyo aniga waxaa lagu yidhaha danta guud ee dalka isu soo duwo oo dad kala maanahoo kala wada fikra duwan inaan mideeyo 100 mudac inaan maxaar ka dhigaa laga raba marka ninka baacmishirka ah isagoo halkiisaa dee awoodsiga karaamisa ku leh ninka sheekha isagoo halkiisaa ku sharfan madax dhaqameedka waxaa loo bahay qofku markuu hadlaayo danta qaran ka hadlaayo dee isaga mas-uuliyadta inuu dadka wanaag u sheego haddii kale aanu balaayo sheegin dee markaa waxaan ku tali lahaa qof kasta oo soo taagaya miidiya dee wax ifkiisa iyo aakhirada usan dadkana wanaagu aanu ka hadlo weliba dadka dee taytalada leh ee dadku ixtiraamaan
dadku eegayaan ay ka firayaan magacu doonaya sitee wanaag waxa weeye inuu dadka wax horeysan sheego fi aakhirada hadduu ka bayro oo balaayo sheego horta isagaa qaldamay isagaana u taalla mujtamacu dee wuu qiimeynaya aniguse waxaan ku talinayaa dadka waaweyn markay hadlayaan inay dadkana soo dhaweeyaan turxaantana ka ilaaliyaan dadkana jihada wanaagsan fi aakhira u sheegaan waxaa jira sixir barar aad adiguna ka hadashay sixir bararkaasi meelo badan iyo nolosha siyaabo badan buu u taabtay abaara iyaguna imika foolaadkoodii iyo hordhacoodii gobolada qaar raadadkoodu ka muuqdaan arrintaasi ka xukuumad ahaan sidee wajahaysaan waxaan wajahaynaa sixir barar kugu jira waanu soo jiitamay qaran baynu nahay 3 meelood buu saameynaya ta u horeysa dadka ganacsada ah sixirku khasaar ku keenay qofka caadiga ah ee shacabkaana faqri iyo gaajo u keenay dowladdana wuxuu u keenayaa dhaqaale darri aanay ku qaban karin adeegga bulshada loo qabanayay mar hadduu inuu wada saameynayo waxaan u baahanay inaynu marka hore isla xaqiijino sixir bararku waxa ka socda iyo maxaanu ku daweynaa taa taladeenu ku jiraa ciddii akhrisana waa lagu wadaa runtii waa nuga raagay waa nagu tafdheeraaday laakiin hawshaa tafdheeridaa leh waxaanu keeni doonaa weyga soo socda wixii ay nala noqotay inagoo dhinac walba la soo tashanay inagoo isku aragtiya oo si aynu u badbaadnaa ka ah aynu u badbaadinaa shirinkeenna ayaynu tala soo saari doonaa laakiin fafaalaha soo baxaya waxaa weeye 3 qodob ay dhahay oo inay runta isaga sheegnaa waa ka koowaad waxaanu dal aan waxba soo saarin ee wax loo diido keensada mar haddaynu dibadda wax ka soo eegsanay ilaa dacas ilaa tamaanada haddaynu soo iibsanayno waxay nooga maanta inay dollar ku soo iibsano dollarkana inaguma sameynee waa inaynu adduunka wax ka iibinaa si aynu dollar u helno xoolaha quraynu iibin jiray waa 1 keli xoolo qura meelka wax kale u dhoofin xoolihii laba isku darsamay abaarihii oo tiradooda yareeyey iyo sacuudigii loo dhoofin jiray waa laabka naga xidhay markaa dakhli lacag adagi inama soo gasho waxayna soo gasho oo waxa yara ka yimaadaa dadka dibadda jooga reerahooda ay usoo diraan doolarkii aynu soo galayna waxaanu ka dhignay faakahaysi inaan ku cunno faakahaysi waa maxay lacagtii intayna soo gasho waxa ku baxdaa qaadka waa faakahaysi marka waxa wey 3 dhibaataa jira inagoo wax soo saar lahayn inagoo wax loo dibadda ka soo gadanayna inagoo xoolihii aynu ka heli jirna wax ay xidhan yihiin inagoo doolarka yar ay naga soo galaan diaspora dadkeena dibadda jooga waxay reer u soo diraan ee lacag ahaan soo galayna waxa muhiima ku badan lahayna faakahays ku gadana marka qof waliba wuxuu baahan in la dirso oo horta naftiisa ka bilaabana wax sax faakahayska aynu yarayno inuu dhexda xidhanno abaaro way soo bateena inaynu seen u noolaana isu weydiino oo aynu ogaanina hawl lagu soo kordhay annagu qorshahaasaan ku jirnaa waana la isugu tegey business iyo aqoon-yahan iyo xukuumaddii insha allah maalmaha soo socdaanu keeni doonaa xal wixii ay nala noqoto in badan intii ololahaad ku jirtay waxaad ku ololeynayseen in sarreynta sharcigu tahay waxaa idinka idin meel yaalla halkudhigiina wuxuu ahaa berri maanta ka fiican waxaad in badan carabaabtay in la dagaalanka musuqmaasuqu yahay mid ka mid a tiirarka xukuumaddaada saldhigga u noqon doono haddiiba ay dhacdo in xukuumaddaada xubno ka mid ahay lagu helo caddayn ah amaba ay raadkeeda ka muuqato musuqmaasuq maxaa kaaga meel yahay dee ballan baa ka qaaday bawrka hortiisa imse goran ka hadda arrintaa tee waxay waajiba inaan furiyo wuxuu sharcigu cidda faraayo marka niyad ahaanna waa aaminsanahay go-aan ahaanna waan qabaa ummaddana in badan baan taa kula hadla marka waxaa dhammaanteen inagu wada waajiba inaad hawshaa layla furiyo hadday arrinta aad musuqaad samaysoon anigu huraan wada qaldamay oo intii taqaanaba inaan kuwa kale way qaldan jiraa in hala daayo barkhad dee mushkilad bay noqonaysaa marka waynu horta qanaan si fiican in loo dagaalano waxaas inuu xun yahay musuqu xar yahay dowlad musuq ku dhaqanta ay dunto dowladaha horumaray ay musuq iska celiyeen waxaana tahay inaynu taa wada go-aansano idinkuna qof iyo saxaafad iyo qolada haddii aan dee yara wakiil tiraadan habaqanin la socdo wanagii balanta lahayne ku calooday oo dee layla garab galo lakiin haddii ummaddu markaa soo horjeedsato kiis kala muqaarida lagu qaaday waxa dadku ummaddu waxay diiday ka daa hardee waataynu ku heshinayno baalka la dagaalanay iminkana waxaad moodaa dadka badankiisu inaan neceb yihin in qofna la taabto musuq ahla daani waa la leeyahy
markaa dee xoog badan baan maharo garab gala oo aniga laftooda haddaan dee yar baqday riixa dhowriya maxaad baqaysaa waa balantaanu galle madaxweyne arrin waxaa jira xeer nidaamyaad soo saartay xagga sharciga markaynu eegno sidoo kale xeerar baa jira baarlamaanku ansixiyo oon la fulinin ka saxaafadda ka mida ku dhowaan la ansixiyo baa jiro booliska ah oo xeerka booliska ah in badan sharci yaqaanada iyo dadka arrimaha daneeyaana baaqiya kuugu soo jeediyeen in la fuliyo maxaa hortaagan fulinta xeerarka waxayna tahay xeerarka wixii baarlamaanku uu baaskareeyay way fulayaan waana lagu dhaqmaya waayo meel madow socon kari mayno kolba xeerkii laynoo ansixiyo aynu ku dhaqmanaa marka wixii xeerar la ansixiyo waa lagu dhaqmaya waxa qabyada ah dadka danaynaya ee baarlamaanka dhexdiisa isku haysta ee weli aan dhan isku laga duwan inay hore u dhameeyeen balaqaatay saxaafadda ka mid a wixii kala sharciyaala ka mid a laakiin bishaan sugnay xeerar badan baan sii diin xeerar badan bay baarlamaanka sii daayay waana ka codsanay dhaqaaqaan waana ku mahadsan xeerarkana waa sii daynayna haddii xeer wax ka qaldamaan amendment dib baa baarlamaanka loo weydiin karaa halkaa wax qalad baa ka soo waxyaa la soco markaa waan qabaa xeerarka inaynu sooda ugu dhaqanno annaga xukumad ahaana dee waa naga go-aan xukuumaddu xeer ma jebin karto fulinteeda maxaa hortaagan tusaalanka booliska oo kale fulinteeda sida loogu dhaqmaa dee waa la fuliyaa xeer jiro oo fulintiisa la diiday ama laga maagmaagay laga barbaray dee ma garanayaan uma tusaalanka booliska ka mida ka saxaafadda ka mida waxaa la soo daayay ka booliska waxaan manayaa waa 20 cisho 20 cisho hor baa saxay dee si isku fulaya ka saxaafadda kii horaa lagu dhaqmaya haddii ku dambe loo baahdana marka kaa dambe la soo saaraa lagu dhaqmaya wixii xeer dee muran male da waxaan ku dhisanahay xataa hadduu xeerka adigoo aad diidan tahay inaad amendment oo dib u saxda mooyaane kolba kaa yaala ayin baa lagu dhaqmaya marka waa la fuliyaa dee anagu xukuumad ahaan mid aanan fulinin ma jiro ama mid aan muran ka keenin aad iyo aad baad mahadsantay mudane madaxweyne aynu tagno xaggan iyo bariga tukare qawl baa ka taagan ciidanka somalilan hore u socday xagga soomaaliya iyo maamul goboleedka puntlandna waxaa la leeyahay dhul aanu leenahayba muran siyaasadeed iyo xuduudeed baa ka taagan arrintaasi maxay tahay halkaa ka taagan tiridinku muran xuduudeed kama taagna ku siyaasadeedna kama taagna waa gardarro qaawan oo Soomaaliya lagu soo qaaday Soomaaliland xadkeedii waxay u jirtaa 70 kilomitir baa noo haray qaran dhisan oo hore u dhistay wixiisa sharciga caalamka iyo Afrika dhaqantana waa ogolayahado Afrika oo dhan waxay noo heshiisa wixii xeerkii kumistuurka tagaa lagu dhaqmo 70 kilomitir gudahooda ayaa laynagu soo duulayaa oo ciidan laynoo aabulayaa oona loogu yeedhaya nama qabataan leh anagu nabad baan doonayna wixii khilaafan wada hadal baan ku dhawaynaa naga dhexeeya Soomaaliya siriya caad baa u sheegay haddii lagu soo duulana waxbaan iska celinayn markaa muran siyaasadeed ma jira midna dhuma jira waa bareen caddaana oo lagu soo duula Soomaaliya xiisaddu way taagan tahay ama ka wada hadasheen madaxweynaha Soomaaliya arrintaasi sida loo wajahayo waayo haddii midi ku taag noqoto dagaal inuu dhaco waa macquul markaas maxay idinka meel yaalla horta dagaalka annagu waa war sheegaynaa waxaanu leenahay war annagu dagaal idinma soo socono oo xadkeeni uma dhowin oo dagaal ma rabno haddaba waxaan tirsanaysaa waa hadal hadduu saddex ku deen waaye iyaga la noqoto sana imka ay wadaan ee abaabulka durbaanka ee mararka qaar qabiila ku saabsan ee ka kacay lahayo dee haddii ay la noqoto inay ilow ma soo weeraraan waa istifaacina diin iyo sharciba waa in istifaacdana waa sharci weeye laakiin annagu uma soconno maanta dagaal uma baahnin Soomaaliya Somaliland mid loo dhibaatay in filan baa hoos taala dagaalo badan ka soo baxnay dadkeenu maanta waxay u baahan yihiin horumar biyo caafimaad tacliin ma baahna qori uma socono qorano ma naan gaari xadkii uma dhowin dee haddii lagu soo roguriyo waa istifaacaysa marka waxaan leeyahay qolooyinka war dee bal dib isugu noqon haddaa ilaa waa idin weerana ay ka go-an tahayna annagu istifaacayna madaxweynaha Soomaaliya ma wada hadasheen waan loo kala dab qaaday waxaanu labadeeduba sidii layga soo wariyey ana aan ogolaaday haddana aan ogolahay in Soomaaliya Somaliland wada hadlaan oo fagaare caalami aan ku wada hadalno oo sana aanay inoo danahayn gardaradana annagaa tirsanayna waayo waxaa leeyahay qaran midkii aalada xukuma qaran madax banaan oo beri hore inu kala baxnay midnimadeeni baanu taagana ma bixi kartaan baa layna leeyahay dee inama qabato waa u gogol badinaynaa Afrika kuwa dowladaha jaarka kuwa fogfogay adduunka xooga weyn leh waxaanu leeyahay gartayda ha la qaado oo bal fagaaraanu helaan ku wada hadalno diyaar waanuna sida la sheegay iyaguna isaguna ka diyaar anu nimaadna arrimihii dibadda safar baad u baxday
dad badan baa isweydiinaya madaxweyne muuse biixi cabdi muxuu ku kala doorbiday Djibouti iyo Ethiopia diblomaasiyadna markaad eegto luqadda diblomaasiyadda dalkaad ku horeysa macna gaaro luqadda diblomaasiyadda ku sameeya maxaad ku kala doorbiday laba dalba wanaag iyo jaarman dhaxs waa noo sameeyay manana kala dooran waa sida waraaqo kala hor yimaadeen invitationku martiqaadku kala ilmaan u raacnay labadaba jaar iyo walaaltinimo xoreysa naga dhaxay wax laga baarbaaro inta la had iyo jeer kana lagu horbe anigu ma arko waxa inaanu mid dooranay iyo inaan hormarinay waa sida kala hor yimaadeen waraaqo laba shay isku xigtay isku yimaadeen sidii ma ugu doorayna labadaba isqadarina laba jaar wanaagsan naga dhaxay waana si xoojinaa labadaba wax naga dhaxay marka siyaasadda armadibadda la yiraahdo Djibouti waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya arrimaha Soomaaliya raadka kula ama ka qayb gala Somaliland waxa ugu weynay u socota waa aqoonsi arinta misla soo qaadan madaxweynaha Djibouti Somaliland markay Djibouti afgarawada Soomaali ku hadasho oo Soomaaliya laga qabo cudurda Djibouti waxba inoo ogol hadda iska qaadan anuu garan maayo cid aan Soomaali ku hadalsan oo afgaran hadda cid garteena qaadsa kaan Soomaaliga naqaan garteena tusnooyay isaga cid kama xogaarsana madaxweynaha Djibouti arrimaha Soomaalida cid uma xogaarsana cid walba ugu xogaarsan hadduu inoo bareeyo waxaan doonaa u diiday inaan bareer bay noo oran kara wala qalad ka jooga hadduu gaar kana waa oran kara inaga la inaga raba dhibano waa inaga nimanka le ay xamar leedahay muqdisho ma madax banaan waa xukunaa iyo wax ku taban taageer inaga waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno waxaan garteena u sheegno Djibouti oo dhib saaf Soomaaliya ka nirgeysa laga turjumi maayo kooro maayo waxaas maxay ahayd intaba uu ogi marka de meel uu inaga hor yimid dagaalamana karan mayno anoon kula ilaa waan isaga u gargaarana war waxay xasan haystay wax ka qaboona garo markuu ku bareero ee gartara ku adiga gartara ku bareero ka cabo waxa maxay gartaraas wali isagoo inama gaayeen ma aha inta qarniga nabada maaga beersan madaxweynaha dawladdiisa jaraa'idka Djibouti wax doonaan bay ka qoraan sida de sax ma ta kale markaad leedahay war garbaan la yahay garabayso ila walo tayda ku raacnade haduu kugu diido quraanu halka mar kale maayo dameen ku gacan saareen ma bayna gaar halka noo garqaad waxay nagu diidin garteena de waxaan u baahanahay inaanu soo fiirsano war waxa sanadaan nimanka dhex galo noo qabo marbu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dawladda Soomaaliland markana meel dhex istaag waa dhageystay marka ra'yiga oranaya Djibouti waa noo qoriyay ma ogola iyo mid baa noo ogol anu marko waxay ku xirantahay saad dacwadaadu xirato iyo qof marka la marayso taas anaga laga rabo inuu cid eedanimo inuu cid caashaqna ma maxaa ku kala timaadeen wanaag iyo gartayada adaa odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow Afrika gee ka mid noqo waxaanu qaladana loo sheeg waxaad ku raacay ma way safarkaagii xigay Ethiopia tagtay isku mid inta in lagu makala wurtig inta garteena leeg ay mar wurtig waxyaalaha localkii waa halkooda xuduudaha safarada waxbarashada ardayda baaxmisharka inta dawladdu waqtiga inta labadu way la sameeyaan wala dawladda qura ee maanta ay ka joogaan safarada ee aad baasboor hargeysa ka qaadan karto fiisada tajwid hadda dhamaanaysa weega wala dawladda inoo xogaala wala ilaahay isku kala xiray jaarkaaga ma dooran kartid ilaahay baa ku dooray marka labadaba wanaag iyo xurban u hayna wixii garaan u leeyahay labadaba si barayn ugu sheegaan arinta qaad ku kala soo qaaday in dib ku tahay dhaqaalaha Soomaaliland waana dana dhaqaalo ka dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliland ma ka wada hadashay ra'iisul wasaaraha mas'uuliyiinta saad qaadku inuu Ethiopia naga yimaado dhaqaalaha galaana uu qaato taasina ay dhibaato nagu hayso sheegan laakiin mid baa taala Ethiopia nagu way qasbi qaad kale noqono inaga jecel hadaynu warinaga waalan marka dadkay wuxuu jecel yahay ma oran karo cid kale ugu caban kartay laakiin waxaan u sheegnay dhibaatooyinka dhaqaalaha xumeynay inuu kamid yahay nacasnimadeeda aan wixii aan haysan faakiis ka dhigano qaar badan ka soo garo de waxa kamid ah maxaan ka iibsaday anigu qaadka aad jecel oo doonayo iibsanayay annaka waxaan ka iibsaday de taasna inaga inoo taala inaan wax iibgeena caalam ka iibino cid loo diyaar inaga iibsato de inaga loo shaqeynaa bayna tahay marka de nacasnimadeena cid kale u sheegi karo maxaa la tagteen idinku marka anigu waxaan la tagayaa waxa dadka soo saaro marka wax soo saarto waxaan soo iibsan leh haddii adiga gelinka inta badan qayraysa in calacalayso
soo inu fadhi ka kacno dib isu weydiinaa maa inagu marka inaga laga rabaa Jabuuti iyo Ethiopia caalamka inuu wax iibgeeno oo dhexda xidhanadii way arinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya walaw xiisadani ka soo martay haddana hawadii Soomaaliya ama Soomaalidu lahayd waxa la sheegay in Muqdisho lagu wareejiyay oo halka laga maamulayo arintaas iyada maxay idin ka meeliyaan tiyaanu gardara bareeran warka heshiis baan u saxan madaxweynaha ka korreeyay iyo ECAW iyo Soomaaliland heshiiska soo jiray Soomaaliya waxay sheegtay inay la wareegtay oo ay waxba tixgelin waa gardara bareeran wax ka badan ka tirsanayna waxay la tahay waatu aan soconin doonin oo wanaag ku imayn waxaan leeyahay arinta iyo kuwa ka ooyinba waa kuwaan uga diyaar karnaa in wada hadal lagu dhameeyo haddii wada hadal la diido la isu joojin waayo oo la ismaqli waayana wanaag dhalan maayo taan ku cararayna waa taa marka anagu dulqaad iyo inaan wixii nabad ku doono ayaanu door bidaynaa intii ay dhibaato iman lahayd arinta dhalinyartoo kale inta badan wad ka hadasho waqtiga ololaha tusaalahaan oo kale surwaal adag madiina xidhaya shaqayn idin diiraya waa shaqaynaysaan in badan baad ku ceelisay haddii dhalinyar aan la jahayna iyaga dib ugu noqdo dalka ayaa inta badan dadku isku raacsan yihiin arinta maxaa weli kaaga mid waxaan uga bilaabi jiray timahana waa ka xirayaa surwaal waa diganaa ciidan maad ka dhigay bal amarka ilaahay timihi suuqa laga xirayo cid abarta garan waayna waa soo baxday dhalinyarada wala kabtanto waxay soo celiyeen klibka xiraan timaan ka xiray xaaji mas'ala noqotay qortaas qalad caab ahayd ka tiyaaru jeetaa ma waxaan u diyaar garoobaynaa oo dhaqaale u raadinaynaa dhalinyarada wixii aanu ballan qaadno in shaqo qaran la geliyo diyaar garoodo ku jira duruufaadu ku dhaqaale waa jira ballan qaaduna kama ahayn waa naga niyad dhalinyaradu inaanay gidaarada fadhiin oo aanay jaawar ku dhicin oo haddii shaqo mushaar aad weydo aad iyaga intaad u diyaarisaa kharash ama dhaqaale hawsha ay ku qaban karaan in mushaar qaadanay oo dalkooda ku dhisi karaan waa tuqulin meel ku yar karo marka wadadeedan waana ma ahan ballan geedka ka iyo kaambay ku galaa waxaan warna waa mustaqbalkeena ku xiran ubadka in jooga ku dhal doonaan baa ku xiran in dalka loo dhiso dal walba wax ku dhismay daadii joogtay waa dhistay dhibaatada qaatay dhulkan quruxda badan aabayaashad baa ku dhintay oo lacag la'aan ku dhisay oo dhibaato badan maray deetana dhalinyarada dhaxalka wayday tanu doonayna inuu marwaataade ciidan tabcan waxa marqato marka insha Allah ballanqaadkaas waa naga furi doonaa waana u tala urursanayna resource ama dhaqaale lagu horgelin lahaana waa diyaar gareyn madaxweynaha kula kaftamo su'aasha dambaysa inta badan waxa la yiraahdaa waxa tala maroorsantaa marka ay gacmo badan gasho bulshada Soomaaliland maanta ku dhageysanaysa ee muuqaalkan dhaxalka u gali doono ballantaad u qaadaysaa maxay tahay inaad qoyskaaga iyo maamulka kala ilaalinayso horta marka hore qoladiinan saxafiintii xad walba jibsaan oo waxaad ku sharciyeystaan waxa la xadoonaysaanba saxaf baana waxaan doonaa dadka oranaya horta dhaqanka odayaasha dhalinyarada ma kaftamaan way hadda odaga la kaftamay sidoo kale kaftamay meel bas wax ku faraya laakiin waa ka qaadanaya kaftanki waxaan in badan sharciga ha sareeyo oo sharciga lagu dhaqmo qaranka qoyskaygana muu dooran cid kale muu dooran cidda qaranka uu xilwintay waa madaxweynaha ku xigis annagu taa inaan fulno diyaar baanu niyad ahaan iyo moral ahaan muddo ahaanba diyaar baan kahay haddaan qaldamana shicibka iyo adigay ku waajibtay hooy ka daa waatan ka ballanay haddaan ku maqli waana dadka xisaab xaqlaa trawriya taasiyaan ku dooranay ma marka aniga go'aan bini aad baan ahay haddaan qaldamana adaa laga rabaa inaad saxdo